Assalaamu calaykum. Xanuunka gaaska ama gastriga. Gaaska ama gastritis-ka waa xaalad caadi ah oo saamaysa malaayiin dad ah adduunka oo dhan, laakiin qaar badan ayaanan ka warqabin sababaha, calaamadaha iyo sida loo maareyn karo ama loo daweyn karo si wax ku ool ah. Muuqaalkani waxa aynu ku daahqaadi doonaa waxyaabaha aasaasiga u ah xanuunka gaaska, anigoo iftiimin doono si ay u sahlanaato qof kasta in uu fahmo. Waa maxay gaaska? Gaaska ama gastritis-ka waxaa loola jeedaa caabuqa xuubka caloosha ku dahaaran. Dahaarka caloosha ayaa door muhiim ah ka ciyaara ilaalinta caloosha iyada oo ka hortagayso asidka dheefshiidka ay soo saarto. Marka dahaarkani uu caabuq ku dhaco, waxay ku horseedi kartaa calaamado iyo raaxo la'aan kala duwan. Sababaha keena gaaska. Dhowr arrimood ayaa gacan ka geysan kara gaaska ama gastritis-ka. Sababta koowaad, Helicobacter pylori infection ama H. pylori infection. Bakteeriyadani waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee xanuunka gastriga, waxayna waxyeeleysaa xuubka caloosha ku dahaaran taasoo keenta caabuq, xaaladaha qaarkoodna iyo boogo. Sababta labaad, isticmaalka joogtada ah ee daawooyinka loo yaqaano NSAIDs-ka non-steroid anti-inflammatory drugs. Daawooyinka sida aspirin, ibuprofen, and naproxen-ka waxay saameyn karaan xuubka caloosha taasoo keenta gastriga, gaar ahaan isticmaalka muddada dheer ama qiyaasta sare dooska badan. Sababta saddexaad, isticmaalka khamriga. Khamrigu wuxuu saameynayaa xuubka caloosha ku dahaaran taasoo keeni kara caabuq ama gastritis, gaar ahaan marka la isticmaalo tiro badan ama caloosha oo maran. Sababta afraad, cadaadiska ama stresska. Inkasta oo diiqada ama cadaadiska keliya aysan si toos ah u keeni karin gaaska ama gastritis-ka, waxay sii xumeyn kartaa calaamadaha shakhsiyaadka horeyba ugu nugul xaaladda. Sababta shanaad, xanuunada difaaca jirka. Xaaladaha qaarkood, habka difaaca jirku wuxuu si qaldan u weeraraa unugyada xuubka caloosha taasoo keenta caabuqa ama gastritis-ka ama gastriga. Calaamadaha gaaska. Calaamaduhu gastriga way ku kala duwanaan karaan dadka, laakiin calaamadaha caadiga waxaa ka mid ah calool xanuun. Tani wuxuu ka dareemi doonaa xanuun iyo dareen gubasho camal caloosha qaybteeda sare. Calaamada xigta, lalabo ama matag. Shakhsiyaadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay dareemaan lalabo ama laga yaabaa in ay matagaan, gaar ahaan cuntada kadib. Calaamada xigta, dheefshiid xumo. Gaaska ama gastritis-ka waxay keeni karaan dheefshiid xumo taasoo keeni karta qofka in uu daacdo ama dareemo dhereg xitaa haddii uu cuno xaddi yar oo cunto ah. Calaamada xigta, cunto beelid ama qofka appetite-ka in uu ka xumaado. Dad badan oo qaba gaaska ayaa laga yaabaa in ay la kulmaan rabitaanka ama dareemidda cuntada oo yaraatay. Calaamada ugu dambeysa, saxaro madow. Xaaladaha daran, gaasku wuxuu ku horseedi karaa dhiigbaxa caloosha taasoo laga yaabo in ay keento saxaro madow. Daaweynta gaaska. Gaaska sida caadiga waxaa lagu daaweeyaa isku darka isbeddelka qaab nololeedka iyo daawooyin. Waa kuwaana xeelado kaa caawin kara yareynta calaamadaha iyo kor u qaadidda bogsashada. Kow, ka fogaa waxyaabaha kiciyo. Aqoonso oo iska ilaali cuntooyinka, cabitaanka iyo daawooyinka kicin kara ama ka sii dari kara calaamadahaada. Tusaale waxaa ka mid ah cuntooyinka basbaaska leh, cuntooyinka ama cabitaanada asidka ah, kafeega, alcoholka iyo NSAIDs-ka, daawooyinka NSAIDs-ka loo yaqaano. Labo, cun cuntooyin yaryar oo badan. Cunista cuntooyin yaryar maalintii oo dhan waxay ka caawin kartaa fududeynta dheefshiidka waxayna yareynaysaa raaxo la'aanta. Saddex, jooji cabista sigaarka. Haddii aad sigaar cabto, joojinta sigaarka waxay ka caawin kartaa yareynta caabuqa xuubka caloosha iyo hagaajinta caafimaadkaaga guud. Afar, maaree walaaca. Ku celcelinta farsamooyinka dhimista walaaca sida neefsasho qoto dheer iyo jimicsiga ayaa laga yaabaa inay ka caawiso yareynta calaamadaha la xiriira gaaska. Shan, daawooyinka. Daawooyinka bilaa dhakhtar la'aanta aad qaadan karto iyo daawooyinka oo dhakhtarka qoray ayaa laga yaabaa in lagula taliyo si loo yareeyo asidka caloosha, xanuunka ama lagu daaweeyo caabuqyada. Lix, la socodka bixiyahaaga daryeelka caafimaadka. Ballanta dabagalka joogtada ah ee bixiyahaaga daryeelka caafimaadka ayaa laga yaabaa ama lagama maarmaan u ah in lala socdo xaaladahaada lagu hagaajinayo daaweynta hadba sida loogu baahdo iyo wax looga qabto walwal kasta ama calaamado cusub oo soo kordha. Gabagabadii, gaaska ama gastritis-ka waa xaalad caadi ah oo keeni karto raaxo la'aan oo weyn oo saameyn ku yeelan karta nolol maalmeedkaada. Fahamka sababaha, garashada astaamaha iyo qaadashada xeeladaha lagu maareyn karo ama lagu daaweyn karo ee ku habboon shakhsiyaadka qaba gaasku waxay si wax ku ool ah u yareyn karaan calaamadaha waxayna wanaajin karaan tayada noloshooda. Haddii aad ka shakisan tahay in aad leedahay gaaska ama aad la kulantid calaamado joogto ah, waxaa lagama maarmaan ah in aad la tashato xirfadle daryeel caafimaad si loo ogaado cudurka saxda ah iyo daawada ku habboon. Halkaas ayuu inoo egahay ciwaankeena. Waxaa inoo balana ciwaanka xiga hadduu Alla idmo. khayr badan.